shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Caan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay ra'iisul wasaaraha cusub ee dawladda Soomaaliya Xasan Khayre. Shacabka ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Caan ayaa maanta aragtiyo kala duwan ka dhiibtay ra'iisul wasaaraha cusub ee loo magacaabay madaxweyne Farmaajo. Shacabka ku dhaqan Buuhoodle oo ka hadlaya arrimahaasi waxaa hadalloodii ka mid ahaa Soomaaliya waxa weeye saan u maleynayo fikirkiisa waa fikir aad iyo aad u wacan kullu waxa weeye shalay shicibka jeclaaday maantana waxa weeye shicibka jecel madaxweynaha waxa weeye fikirkiisana waa fikir aad iyo aad u wanaagsan waxa weeye wax alla wuxuu keeno waa wadanbeena waa madaxweynaheena waxa keena madaxweynahana fikirkiisa wax alla wuxuu keeno waa ugu dambeena waa madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Soomaaliyeed waxa weeye ra'iisul wasaaraha noo keenay ra'iisul wasaaraha ku qanacsanahay haddaan nahnay shacabka Soomaaliyeed ee reer Buuhoodle odayaasha iyo shicibka uqaasha waxa ku nool magaalada Buuhoodle waxaanu taageersanahay ra'iisul wasaaraha cusub allaha taageeray cusub ee la magacaabay waxaan u arkaa mid laga fiirsaday oo xaq ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ina anfaco Soomaaliya dal iyo dibadba inuu anfacaan ilaahay ka baryayaa waan ku kalsoonahay isbedel wanaagsan oo Soomaaliyeed buu samaynayaa waa laga fiirsaday ka fiirsaday baan ku raacsanahay sida uu uga fiirsaday sharaf kale maadaama nahay dhalinyarada gobolka Cayn waan ku faraxsanahay ra'iisul wasaaraha cusub madaxweynaha cusub ee dawladda Soomaaliya noo magacaabay haddaan nahay dhalinyarada gobolka Cayn aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa مسألة ذلك بقصة كلا أسبد الوين. ها قريب من كان ذلك واحد بدن وقبتي وأنا اللي عصده مدحوينه وعصده وياي سافلة واحد بدن بقوة كي يرتشفلها مركز هذا أنا جعل هاي مسؤولية. وصدر تيسير شرفت مدن مدحوينه محمد عبد الله فرماجو إنه ينصحيان رئيس وزراء حسن خيره إن شاء الله أصلا waxaan ku rajaynaynaa in uu dawlad tayale hufan shacabku rabitaanka shacabka ku dhisan inuu soo dooro hadii Allah idmo muddo wuxuu haystaa baan filayaa 16 cisho gudahood ayaanu filaynaa inuu ku soo doorto dawlad ka turjumaysa rabitaanka shacabka hadii Allah idmo inta kadib waxaan leeyahay hambaliya ra'iisul wasaaraha shaqo fiican oo dhammaan anfacdo dalka iyo dadka iyo diintaba iyo inuu xukuumaddiisa degdeg ah ku soo dhiso oo waliba uu soo magacaabo rag muwaadiniina oo dalka halka meeshuu ka jiro ka sii wadi kara insha Allah ra'iisul wasaarahana waxaanu leenahay ilaahay shaqada culus lagu idmaday lagu xisaaray ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku fududeeyo shacabweynaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Caan ayaa sheegay inay taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha cusub ee soo magacaabay madaxweyne Farmaajo Xuseen Xasan Cadde telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Caan.